الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد إلهي باكليدي مهدله مدحوينها جمهورية الصومال مدن عبد الرحمن محمد عبد الله maanta oo ay taariikhdu tahay 10kii bishii 12aad 2025 wuxuu soo saaray laba wareegto mid xilka qaadis ah iyo mid magacaabis ah wareegtada koowaad ee xilka qaadistu waxay ku socotaa Maxamed Xasan Jaamac Xoday gudoomiyihii hore ee gobolka Awdal ku socota Maxamed Daahir Cabdalle Gaafani gudoomiyihii hore ee gobolka Saaxil ku socota Axmed Cabdi Muuse gudoomiyihii hore ee gobolka Sanaag ku socota Haybe Cismaan Muuse xubin hore oo ka tirsan guddida tacliinta sare ujeedo xilka qaadis mudane si aad la socoto xilalka qaranku dabcigoodu waa meerto iyo in hadba loo igmado cidda ugu habboon ee gudan karta waajibaadka saaran sidaas darteed waxa aan go'aamiyey in laga bilaabo taariikhda maanta inaan kaa qaado xilkii aad u haysay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan kaaga mahad celinayaa muddadii aad xilka haysay iyo dadaalkii aad gelisay gudashada waajibaadka qaranka waxa aan kuu rajaynayaa guul iyo horumar dambe Allah mahadne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland taasi waa ahayd wareegtadii xilka qaadista ee madaxweynuhu soo saaray maanta wareegtada labaadna waxa weeye wareegto magacaabida waxaana u dhignayd sida soo socota markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland markii aan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayo-aragnimadooda markii aan tixgeliyey ahmiyadda ay xilalkani u leeyihiin oo adeegida dadweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhismaha qaranka markii aan ku qancay inay hanan karaan mas'uuliyadaha ka dhalanaya xilalka hoos ku xusan markii aan sameeyey la tashi waxa aan go'aamiyey laga bilaabo taariikhda maanta kow in Cabdirashiid Xasan Mataan uu ahaado gudoomiyaha gobolka Awdal laba in Cabdiqani Maxamuud Caateye Fariid uu ahaado gudoomiyaha gobolka Saaxil saddex in Maxamuud Raage Ibraahim Guuleed uu ahaado gudoomiyaha gobolka Sanaag afar in Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Herer uu ahaado gudoomiyaha gobolka Daadmareed shan in Cabdi Siciid Faahiye Allaale oo ahaa gudoomiyihii hore ee gobolka Salal uu ahaado xubin ka tirsan guddida tacliinta sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland lix in Professor Axmed Cabdilaahi Maxamed Dhegayare oo ahaa gudoomiyihii hore ee gobolka Saraar uu noqdo gudoomiyaha cusub ee gobolka Salal toddoba in Cabdiraxiim Maxamed Axmed oo ahaa gudoomiyihii hore ee gobolka Daadmareed uu noqdo gudoomiyaha cusub ee gobolka Saraar Allah mahadle Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa mas'uuliyiinta la farayaa inay muddo 3 cisho ah ay xilka kula kala wareegaan. Assalaamu calaykum.